aadan bare ducaale oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya ayaa sidaan qaba. dowladda Kenya waa inay isticmaasho dastuurkeeda qodobka shanaad qodobka 241 saddexaad iyo 255 dastuurka waddanka Kenya oo ay dhulkeeda iyo baddeeda ay ilaaliso sidoo dastuurka anaga uu qorayo. marka maxkamadda ICJ annaka waa waddan waxaanahay aaminsan the rule of law waan hortegaynaa laakiin maxkamadda sayto ma qabto awood ama ma qabto ciidan ama ma qabto booliis markay ay go'aan gaarsiiso fuliyo go'aankaas fuliyo. cabdiqawi axmed yuusuf oo ah gudoomiyaha maxkamadda adduunka ee ICJ ayaa isagu qaba sidaan. nadayada khasab waaye in la hirgeliya maxaa yeelay maxkamaddii cadaaladda adduunyada ayaanu nahay sidaa awgeedna ayay muhiim u tahay in dowladuhu ay horay u aqbalaan awoodda ay maxkamaddu leedahay iyo in maxkamaddu ay geli kadho muranada ama khilaafaadka dowladaha dhex yimaada. marka dowladahana hor yimaada inta badan waxa waaye dowlado aqbalay awoodda maxkamadda soo goostayna inay maxkamadda hor yimaadaan oo taas horay usoo aqbalay go'aanka maxkamadda ka soo baxana waa ay fuliyaan oo dhaqsay u fuliyaan. marka go'aanada maxkamadda iyadu ma dhacdo in aan fulitaan la gelin.